qodobkan waxaynu ku dul istaagi doonaa sida aad la socoteen bashalay waxa golaha baarlamaanka gaar ahaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya hortagay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo waliba taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa Axmed Macalin Fiqi iyo General Odan Waa halkaasi hadalla ay ka jeediyeen si gaar ah waxaynu u dul istaagi doonaa wasiirka gaashaandhigga oo waxyaabo badan oo la weydiiyay markaas ka jawaabay isaguna si gaar ah u soo qaatay khudbadiisa waxyaabo muhiim ah oo la xiriira arrimaha Puntland ka taagan bal waynu eegi doonaa iyo guud ahaan Soomaaliya saaxiibka Jaamacal Beelisho Jaamacal soo dhow ma sha Allah saaxiibka Axmed Macalin Fiqi wasiirkii hore arrimaha dibadda haddana ah wasiirka gaashaandhigga wayadana saxaafadda si weyn uga soo muuqday shalay baarlamaankii wuxuu hortagay aqalkii sare soo dhow maxaa kaaga baxadkiisa bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay salaamu alaykum wasiir Axmed Macalin Fiqi horta waxa yani la weydiinayay su'aalo inta badan ku saabsan wasaaradda gaashaandhigga waxqabadkeeda dadaaladii xoreynta iyo si guud xaaladda dalka iyo maartay arrimo ku saabsan wasiirku de jawaabihii uu bixiyay intooda badan wala dareemi karay qaarkood yani si waafihu uga jawaabay qaarna xogaa يعني ان iyo maaragtay hubanti la'aan iyo taliyahan u deynaya iyo adigu waxyaabo maaragtay noocaas ah iyo galiyay gaar ahaan dhinaca la dagaalanka kooxdan maaragtay la yiraahdo shabaab iyo arrimo noocaas oo de in dhawaalaba dagaaladu ay socdeen wax badan ba markaa de kulli hadalkiisii dadku ay ka fahmeen oo marka aad yani wasiirku hadalada jawaabaha uu ka bixinayay yani su'aalihii xildhibaanada waxa ku soo baxaysa inaanu xoogaal ahayn wax badan ba uuna ka warqabin ama maaragtay uuna la soconin ba meesha ay wax marayaan iyo dagaalada iyo guulaha ciidanka xoogga uu gaaray iyo guul darooyinka ciidanka la soo dirsay iyo sababihii ay ku yimaadeen iyo yani waxyaalahaas oo dhan shaqadii wasaaradda inaanu wax badan ba kala soconin oo deewanin maaragtay wax iska dhicin kale ku jira marka shaqadiisii shaqa aan ahayn buu hayaa shaqadiisiina waxba kama oga marka taanada dadka Soomaaliyeed fahmi karaan dabcan waa TikTok iyo maxaan ku yiraahdaa intee meel walba taagan TikTok kaliya ma aha wakaasa nin maartay difaac iyo dagaal aan si gaar u feerino maxaa keenay xilligan in Axmed Macalin Fiqi oo wasiir gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanku inay baarlamaanka hortagaan waxaa de kulli dalbaday baarlamaanka aqalka sare dalbaday oo de hay'adii ugu sareysay ee dhinaca waxa la yiraahdo sharci dejinta ah gobolada dalka ayuuna matalaa yani aqalka sare ama dawlad goboleedyadu matalaa marka waxa su'aalo laga weydiinayay yani dagaalka socda iyo guulaha ciidanku ay gaadheen dawlad goboleedyada ciidanku qaabka ay uga howlgalaan in ciidamada dawladdu ay gaarsiisan yihiin dhammaan dawlad goboleedyada yani arrimaha kulli wasaaradda gaashaandhigga iyo dawlad goboleedyada iyo isla xisaabtan dhinaca mas'uuliyadda yahay wana loo baahnaa yani arrintan oo waqti xaadirkan oo wax waliba ay isku daba dhamaadeen ma hadda muhiim ma ahayn horey bay muhiim u ahayd hadda wax waliba isku daba dhamaadeen oo yani dawladdii iyo hay'adaheedii oo dhan waxa uu haray wax 5 bilood 6 bilood aan ka badnayn baa wax haray xilli loo baahan yahay marka ma ba wax hadda la qaban karo iyo wax hadda isla xisaabtankani uu keenayo ma ay jirto yani waxay ku habboonayd 2 sano ka hor insaan oo kale yani markii dagaalku uu joogsaday ee dagaalkii al-shabaab uu joogsaday ee ciidankii yani la dhisay uu baaba'ay markaas ay ahayd in ay su'aalahan iyo maaragtay la xisaabtanka noocana inay keenaan markaas laakiin waxaad moodaa yani hadda meel cidla inay ku baraarugeen oo qoladan aqalka sare ay qorshe ah leeyihiin xoogaa inay isii tusaan dawlad goboleedyada way jaamacu bal halkaas intayna wasiirka su'aalo badan baan ka qabaa laakiin taliyaha ciidanka meesha wuxuu ka sheegay in ciidanka dhintay uu yahay wax lalay ama kaagay 10,000 ilaa 15,000 oo askari baa baxday maxaa laga fahmay hadalkaas waxa laga fahmayaa ciidanka khasaaraha soo gaaray iyo in si ku talagal ah ciidanka loo baabi'iyay oo yani ay qorshaysay dawladdu ma aha wax qarsoodi ah oo wax si caadi ah wasiiradu u sheegayeen laakiin heerka in khasaaru gaarsan yahay waliba yani waxa isleeyahay uu dul maray
laakiin 147 sargaal oo saraakiil sare kuwa dhexe iyo kuwa hoose isugu jira oo taliyayaasha ciidanka iyo abaanduulayaasha iyo howlgeliyayaasha ciidanka yaa baxay inta uu xasan joogay 147 sargaal oo la hubo saraakiishii active-ka ahayd ee dagaalada hogaamin jirtay maanta ciidanku ma balahaba wax sargaala ma leh waa macawisley isdhex yaacaya ciidankii yani la dhisay ee xilligii farmaajo la yani juhdiga la geliyay ee aynu arkaynay waxba kama joogaan yani qof nasiib leh yaa ka jooga iyo kooxo yaryar oo lagu kala fardhiyay maxaan ku yidhaha ciidamada marka ciidanka si ku talagal ah ayaa loo maaragtay yani gabawaray oo qorshe cad bay ahay oo loogu talagalay in ciidanka saaxada lagaga saaro iska taga haddii la yidhahdana dee warbaahintai ka hadli lahaayeen goobaha dagaalka marka inta lagu shubo yaa dabka laga goosanayay kaasa iyaga oo lagu habsaday ayaanay wax gurmada helayn ka dhaawacmay lama raadinayo kii fakaday dalkii ma yaqaano dadkii ma yaqaano deegaankii ma yaqaano lama raadinayo wax gurmada uma tegayo qaar baa oon iyo gaajo u dhintay qaar baa maxaan ku idhahdaa say u firxanayeen cadowgii afka uga galay qaar baa yani aan rag iyo ruux meelna caawa lagu sheegi karin taliyayaashoodii hadda taliyihii caws weyne shahma cabdi ninkii la dhihi jiray geeri iyo nolol cid maanta sheegi karta ma jirto meel ku sugan yahay meel ku dambeeyay iyo wuxuu ku sugan yahay saraakiil badan baa noocaas gobolka Hiiraan bay ka dhacday waxay ka dhacday Galguduud bay ka dhacday Mudug bay ka dhacday Shabeellada Dhexe ka dhacday Shabeellada Hoose ka dhacday yani meelo badan bay ka dhaceen oo aan ciidanka yani la dhihi karin yani waxaas u dhaceen yani guul darro ciidanka soo gaadhay bay ahayd aan la dhihi karin ee yani loogu talagalay oo qolo walba inta meel la geeyo unbaa airfishta lagala baxayay marka taliyuhu waa runtii ciidanka si ku talagalaha loo baabi'iyey saraakiishoodii baa baxday wax hadda macno leh oo yani dee ka hadlahaya ama ogna maba jiraanba dadku kuma baraarugsana أحمد معلم فقي وسيرك قاشان بيجو سؤاله اللي ويديه ويبنايه لو حباك سوق هذا نيا أنت بنتو لان لو شيء بنتو لان ندل لي لأنه في حرنته يجونا مالك كلام بيوين أنت بوساسو يا أد مهم واحد وسيرك قاشان بيجو سومالي وستوس ويلي ماشي اللي بوساسو ديارة كعب السودان يملا باسته وهالكاس عضو خير هذا الكيسي ورباهنت عربته دم بالك العربته فلنقينيس وانجر محاكا جمهور هذا بس ان أرتا وسيركو حد مدة يعني حيابها وكو هذلي ميسانك أيليه هي مسؤولية وحنبارسين هنا يعني كذا دعسنين أما أونا فهم سنين بقى قف إسكاش كينية ومحنكو هذا يتمل أما فدي كدر أما مقاحي كهذلي وكلا قابك يوهذلي وما هذلين سي مسؤوليات وما هذلين سي ماركتا يعني حتى وحون حكمدي أي كوتشرتو بدلان كحمة يهبل بأحرنت هاي وحاس يعني وحوجا ها دني كحمة وي لكن السجا أيا إسكو حمية أنتو دني كحمة لها يعني ها بدلان والدولة قبلها أوكي مركا وليه هي ديار ذا ككعة ماشي اللي هذا بوساسو وحي كدغان نيجر iyo Chad iyo Central Africa كدغان iyo galbeedka Suudaan bay kadgaan markuu leeyahay isaga wasiirkii gaashaandhiga oo dawladda dhexe maxaan ku idhaahdaa to yani ku metelaya difaaca dalkan yani uu leeyahay diyaaradaha ka kaca ma dal kala soo dalkii uu yani wasiirka ka ahaa taa horta inuu yani og yahay bay ahaan lahayd wuxuu u dhigay qaabka Puntland inay tahay dal aan Soomaaliya ahayn oo ka madax banaan waa marka koobaad waa marka labaad diyaaradaha ka kacaya boosaaso yaale sirku boosaaso diyaaradaha ka kacaya buu diyaaradihii yaale marka Puntland buu ku eedeynaya oo uu leeyahay diyaaradaha dir marka diyaaradaha Puntland baale dalka ay ka kacday waa Puntlandna waa dal kale oo shisheeye oo aan ahayn dalka Soomaaliya هذا الوزير كساس يودق مياه ويعني موجينيا هذا الوزير كي ما هذا وحبه كمان وجنب بكلية هذا الديار ذا كعيب وليه ديار ذا هالمركا إن مركا أينو يعني سيدا سو هذا الودق هايو أينو ودقنو ويعني أينو توس وأدنو وهو ديار ذا
waynu ognahay imaaraadka carabta leh isna wuu og yahay laakiin kuma dhaco yiraahdo imaaraadka carabta kuma dhaco wadad afduuban يعني دولة الصومالية ما أنت إنه نقول دولة الصومالية ودولة الإمارات كوا أفضل والسر اللي جوا هيو ومحنكو إلى هذا يعني أن وحبس ثمين كل فالحمضة يعني إمارات إهانة جسدي دولة الصومالية يعني وح عن عادي أهوني وآد وفر تنا وحسب أيها المدحون مكتوبين سو عاصمة طيب مكتوب وكي سو بوسن ومحنكو إلى هذا يعني وش كارنته قعدنا النور ما كسب عليه waxba kama jiraan ishaan maxaa ka soo baxay barka iyo koodadka wixii ka soo baxay muxuu ahaa hay energy mu hadda ku dhaco horeysa muxuu ugu dhici waay energy-ga halka maalin imaaraadka ku helay iyo nabarka halka maalin imaaraadka kaga soo baxay dad aqli lahaan nahay dad waxaan nahay ma garanaysaa yani aan khiyaari iyo riwaayado loo jiri karin meesha wax weyn baa yani yaala دولة الصومالية يعني إمارات كسيرة ودونا إنتو ولا رقمه هذانا إن أي كود عويدو يعني وواح عن عادي أهون ديارها مركا تشمبالة ديارها تشم وليه هاي أيها كدولة ماشي اللي هذا إن بوساسو سير وسير وهذا اللي مكان هذا ناس عادي أنا هذا ديارها الصومالية هو الاستعمال أي حاجة لا كنترولها ديارها مقدش على كنترولها ديارات أين مقدشة فاسحين هو الصومالية مسؤول قري كرتو كمان نوع عيدون شمبرتي سوق جشة وحاول هالكاس اللي هذا العقد اللي قاعدنا إياه في الربنا ولا علنية أوكي إن دياراتها المركة ما أها أوكلية يعني فقي عدة إنكريسة إن إلى دياراتها عدة له إيه أنكو دعين وذاك أو عليها سنوا كي الديار ذا كعميشة عدة لشيء باليري ما يعني ما دوني هذا ينا شيء شعب وجز ها غير الله سيه سو ماذا فهم وحاول ما شيخ ما هو سياسي وشيخ ما هو اج ما شيخ مسكاف قبل سنة ايه شيخ كنا وقف قبل سنة ايه سمح هو سياسي كان سياسي ما سببت مركب بدل لان لوجا في قبل سنة واي إمارات لوجا في قبل سنة يوم حيتها مش هيك كرتاه بدل لان وصوماليا سببت اللوجا في قبل سنة لوجا في قبل سنة واي لولا رات سنة يوح والبا يعني إمارات كان اللوجا في قبل سنة إمارات كان واقعي فرماج عينية بناك إسكندرية ضمت أنا فرماج فوق من حسقوق بكرام عيدا هي في دولة إيش ما مهمة دوحيت هاي إج حجاير أو إمارات سواء اللي سكعلين كرامة حسن إسكعلين كرا هي دولة دي اسمنا وحوين بقى دولة كورة تسكعلين سير ده ها مايا قف كبير هذا كونه قب يوحون هن يكدع إنه ليه هاي في عن قف هدوس هن لا هاي ضعيف ويا هاي نقول وشيشيها نقول وشيلين نقول وأن يعني محن دور السنين هدويها قفكم يعني وحبيس كم عليك قفك دور سنبا وحس كعليه أفوح أنا حشوبة لي هذا هالبولات أهدي له بسيا ما أنت صادون تقوم هدي كرت عد كاجم بقولن كرتي وجمو بيسا حرمتي وجمو بيسا مدح هذا الله دين يسا وفعابد مدح الله دين يسا مامل حمر كتير مجا الدولة الصومالية وتا ومامل الجمية لبهدلي سحن لولا دقمي أن كل عين هيبدأ قرنمو يدل كان يعني شرف كيسة إن إلاليان أو أن أودين إن أي وحون أدينا شديا وحنا وين دولة السودان يعني أنه ولا لها النهاية يعني مركي ويمد مسؤول كذي مسؤول كي إمارات كالسعودية ويمد كي اللي يسكت دولة الصومالية ما أنت يوحن أي يد مسؤول كذي نيس عندنا الدنيا كلها حسابته ما يصير كون على كلها حسابته وياه دولة السودان دعوت بيقود بس عالم كوجود بس صوماليا كمتش وكرب صوماليا يدي بهدنا اسكو قرتي إني دول كدو شيء أو أي حسوق يسو دولة دك رئيس السودان سير كي كاشان صوماليا مو أوجا هدو ما هدو فهمي كرا وما بهدين بس ده إن دولة الصوماليا دعويني يدرك وزير كاينو إن دولة الصوماليا أي دلك الصوماليا كجدو شيء دلك السودان أو أي الفاشل يبرأ يمحنكوا لهذا يتمجالوين كله أو رئيس السودان هبكي يساندي يعيدن كصوماليا اللي قد دري لقوا بابي وسير كساقرتي أو شيء عيدن على شو شخصية لا تشوفوا هالك
diyaarada kaliya kuma noqon waa sax oo dee hadalka saas uu yiri ciidanka Colombianka wuxuu un ka maqlay maxaan ku idhaahdaa baraha bulshada baraha bulshadu ka maqlay wax xog iyo waxa gaashaandhigga Soomaaliya wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya sida hadda uu يعني أهد لي مرك أن فيرينه ما ها قف حقوقاله ما ها قف لصعدة واقع يحقيق ربطة يضل كان واحد وكسوجية واحد كم أولى صابته أمي هذين صوماليا يلقى دولة السودان سووا سلدني كحماء السودان تي الود دولة عالم كي كقرصات في جنة أنت أصلا ملاك وبني آدم دبلوماسية يقانا دولة لماذا يو محمد قولي هذا حبك الله مارتي أذيك سدو سيقظة لقدة لوح الله ها تو أسكسو استاجية حاول وحربكوا هالليا سيقظة دبلوماسية يعني نع يو عداوة يو نعيب حد دافع qofku ku jira way qofku hadii nacay ku jireen ismaha kamayn karo wuxuu ku hadlayana ma kontrooli karo wasiirku markuu wasaaradda arrimaha dibadda joogo saan muuna ahayn meeshii la ka hadlo wasaaradda gaashaandhigga ninka uga dartay sabab u jiro maya waxba sidaan hadda kama wada duwan hadda xilliga laakiin soo dhawaaday rafasha lagu jiraa rafashadaas markuu wasaaradda arrimaha dibadda joogo haliyay waa kulli waxba iskama bedelin soo wada xilligii iyada ahayd yani wasaaradda arrimaha gudaha uu joogay xilli waxay ahayd aan loo fiirsanaynin hadallada xilli waxay ahayd Ethiopia ay tallaabo guracan soo qaaday ahayd oo u soo qaaday dalka Soomaaliya taana qof kasta oo Soomaaliya ah yaa isaga ka cadcada oo ka hadalla kulula annaga ka hadalla cadcadayn oo ka maaragtay cod dheerayn oo si walba u hadlayno oo yani muujinaynay bulshada Soomaaliyeed yani maanta halista lagu jiro iyo sida ay waajib u tahay in looga hortago sawna de sida hadda uu hadlayo uu hadli jiray kolba kii toogay hadlo inuu Afrika sare ma waa wuxuu rabo uu ku sii deynay marka muhiimaddu waxa weeye meeshan diblomaasiyad baa la rabaa siyaasad jango an oo la yaqaano meesha ay ka duulayso iyo meesha ay ku dhamaanayso yaa maaragtay dawladnimada looga baahay dawlad aan siyaasad lahayn dawlad aan ajende lahayn dawlad aan qorshe la yaqaano oo nacab iyo nasteex u kala soocaya aan lahayn weeye tani waa koox meesha isugu timaada way isu yimaadaan way iscaayaan way kala tagaan way iscaayaan way kala tagaan cid aan fiqi ahayn oo meeshan ka hadlaysa miya arag maxaa fiqi isaga soo dawladdu ma la afayeen yani waa wax cajaa'ib wey isagay tahay taa in la weydiiyo laakiin yani qofka aan xishoonaynin baa la qabaa qof aan ku yahay wasiiradan hadda waxa loo ballamanayaa sidaa ka wasiirkii aan yani yeelayno iska takadala qorshahaas hadda soo socda waxyaabaha uu ka hadlay ee kale waxaa ka mid ahaa dagaalka xalmiska hadda soo arkaa wuxuu yidhi dagaalka annagu aan kaga qayb qaadana waa wey dini baa meel walba naga ooday taakuluu naga diiday ciidan kumaandoosa ma diyaarnuu naga diiday daawadiibu naga diiday si walba oon dagaalka qayb uga noqon lahayn waa diiday waxaa kaloo uu yidhi qof baa ka dhawaajiyey oo yidhi meesha 2,000 daacishaa lagu dilay daacista Soomaaliya oo dhan joogteen noo xisaabsan 2,000 dhan sii dhow jiray marka marka waran arrimaha xalmiska lagu leeyahay ma qaadatay marka warkiisa adi maxaa kaaga baxay yani ina la iska hadlo wax macna ah keenayso aniga ima muuqa oo iska hadlo ciidanka iyo kumaan doosta uu Puntland u dirayo muxuu ugu difaaci waayay masaajid Ali Guduud iyo aadan yabaal iyo maqokori iyo maxaas kuwa kala jooga difaaci maxay u difaaci waayay kuwii joogay markii laga adkaaday ciidanka uu leeyahay boosaasaan u diraynay iyo buraha calmisgaar wuxuu halkan ugu diri waayay haddii boosaas ka dhiibay yani inta iska soo istaagto wax rabtay inaad iska sheegto wax macno soo kordhinaysa male mas'uuliyad maaha waxa soo kale yani dadku ma xoolaa dadku ma xayawaan baa waxaa la difaaci la yahay Basra oo ay al-shabaab joogaan oo xamar maxaa duleedkeeda ah Basra ها ماشي الله نحرست اللي مدير فرحان قرر ولا اللي مدير عيلش بيها يجوجان الشباب وبابورت عن شورتك كذا قاعدة ما كوا اللي قد دفاعه وعيدا كله أدرو كوا سرقي سما شو يا وما هدي وحلا رب اللي سو شيء يوجوني ده موقته ماشي ورون عيدا واجوجا لكن عيدا كجوجا هذا حمر يعني ينواحي هذا يهيل ويني إن
area jooga waa maleeshiyad loogu talagalay in kursiga lagu haysto maleeshiyad mise ciidankii qaranka ma waa maleeshiyad waa ciidan hal beel awaay war ma yeena ku fiiri war isaga laftiisa shalay soo qarxiyay wareer kuma xadgudbahaye ciidanku waa ciidan hal beel ah ma ciidanka Soomaaliya ha yani ciidanka hadda meesha jooga ciidan kale ma jiraba wareer shalay ma dhageystay isagoo ciidankii gorgoro hore wax kale ugu sheegay amaanay yani odaygu shalay si laftiisa soo والله waa maleeshiya beeleed waagi hore uu banaaga joogay uu farmaasha samaysto waa maleeshiya beeleed shalayna wuxuu lahaa ciidanka ugu fiican ee Soomaaliyeed dama waa qofku waxyaalo fara badan qofku marka uuna ku xisaabtamaynin siyaasina uu yahay isaga uma iska wada hor iyo dib imaanaya in uu shalay ku sheego maleeshiya beeleed yani wax macna badan ma keenayso inuu maanta ciidan qaran ku sheegana wax macna badan ma keenayso berina wax kale ku sheegi doona wax macno badan oo ay keenaysa mare laakiin yani qofkan ba yani waxay ka bixinaysaa tilmaan qofka uu yahay iyo yani mas'uuliyadiisa iyo xilka uu hayo ma yahay qof u qalma waxaan rabnay ninkan inuu dagaal galo furimaha dagaalka ku jiro ciidankii abaabulo bulshadii abaabulo uu goobaha dagaalka iyo furimaha uu ka soo muuqday inuu maalin walba yani Facebook ka soo dhawaaqo oo halka uu marna Shariif u tiriyo marna Xasan Cali Khayr u tiriyo marna Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu umiiso yani wax macno ay keenaysa male teeda kale adduunku system buu difaacay qof ma difaaco ma difaacaya system qof buu difaacaya yani marka aad aragto qof difaacayana waa qof maran sideedaba qof lama taageero siyaasaddu ma aha qof haddii aad siyaasadii qofayso oo qofka siyaasadii ka dhigto qof difaacaya ده حسن شيخ بالدفاعية 24 hours ما كلا wax kale oo ka hadlayo ma jiraan waxa uu difaacayo waa kursiga Xasan Sheekh Xasan aragtibu kula socda hadda kula ma socdo waagi hore soo aragtibu ku diidan waa ayax kula maya fiiri marka iyada ana aragti kuma diidanayn haddana aragti kula ma socdo marka iyada ana nacfi la'aan baa jirtay oo banaanku joogay oo wixii uu rabay inay wax ka soo dhacaan meesha waxba ka soo dhici waayeen حسنا وارنا إسقى باهن قف مر ولا باهن وي قف قدو مر ولا باهن يهينا وواح كله وي هذا طبق ما هنا طبق ما يهدي سقى ما سقى تيسي أنا وركي سيبان دبس عضاء حسن ما جاي ما سقى دبس عضاء سمعنا فهم هذا أنا ماشى وحبوك هايستا وحسوا إلى عشان هي مهم الدو مركا سياسة دي بقى قف أول مرة فرماتشو كسور شيء أو سياسة يعني وأركهي إن السياسة تهاي فرماتشو مر حسن شيخ بكسو هرشيدي مر قبيل دن أو سومالية يو وقف لجدي أو يري حق بق مالها إلا الدور تقف إيجا كمدا حسن شيخ درادي يا حسن شيخ درادي نو مو أبقى الميكي لاسو ما هين بنان قلت تاجنا كورم واجي ورا مركي دلا 17 كي هلي يعني 16 كي 17 كي هذا هو بوسقات ها هاي سمعت فيري سعد استنينج marka ninkan waa mujaahide waxa weeye mujaahidku yani meelihii rabay inuu ka jihaado meelaan ahayn buu ka jihaadaya waxaan rabnay inuu furimaha iyo meelaha ka soo hadle wuxuusan aqoon u lahayn aqoonin shaqadiisa aan ahayn diblomaasiyad iyo siyaasad yuu ka shaqeynaya oo ku dhex jira waana ku haftay oo maalin walba yani dabaal xumada hiriqu ka bilaaba meesha ugu xun buu ka bilaaba adduunka waa markii koowaad aan aragno wasiir la dalkayga dal lagaga duulay waxa ku duulahayana ma naqaanay jimba diyaaradaha ka rarta jamhuuriyadaasi jinka ee diyaaradaha ka raraysa boosaaso yani jinku waa kala yahay jinki shamba kii maxaan ku yiraahdaa xagaa reer galbeedka hadalkiisii 24 saac ugu dambeeyay warbaahinta caalamku si weyn buu soo qaadatay gaar ahaan warbaahinta carabta فضيحات وين بان لو جدي سوماليا انا اسكو قرتي دنبي ادونكو كاين دلعه بركه ورarda تما تا waa sax wax hadda laga sheegaba yani dadkan waxa weey horta madax muuqda waa laga hadlaya magacna wata laakiin wax bini aadan oo hadda aqliga iyo si u fikiraan madaxweynaha Eritrea intuu ka yaabo wuxuu yiri Soomaaliya jid iyo jahatoona male meel ay u socoto iyo waxay ku socoto iyo waxay doonayso cid asiyaasa foorge waraysigu bixiyo meesha soo xasan ordahay uma tagin oo laga ma soo caydinin meesha قاهرة فورك إيو السيسي وماشي تشوفه وكي كده جاي مركو تبودي كسوتي حاجة وسعتي وبالي ها حاجة وسعتي
ما شركة هذا وينجي ماشي محاب يا ما كفهمي كرالي إنا كفهمنا إنا كل شره إنا هرت كفهمنا كهور رسالة لازم بحيل واحد فهمي كرمها أبو سياسة الصومالي يضل كذا اللي قص عضا بدأ هذا عصب اللي قص عضا لا قص عضا ما يعني قرشة أي كلا هذا هي سياسة أمني الدفاع مدنا ما ترتب مدنا ما ترتب مركز حتى وحسكوه قاتان حاجة كله سوه جيا وحبا هذا كله سقف بعد يعني وعده بكله سوى له شو أركيسا مركز سياسة هذا حقها يعني مركز وحويان بيقول أنا جيا مصر قان كي يتطلب ذو ينك أنه قاعد إنه كل دفاع إنه بحنقول بدأ عس يجودهم بدناها إن جيس كأفريقيا يو قرشياش اللي دون الدماء يعني إن لوجو تجو ماشى أنا إنه تلعب لكن عد كلام حكوا الدين وسوماليا إنه حكوا السوماليا دنيا هذا حق استبد أدهم هذه صاحبكي جامع أيها أو مارتي برنامج كان يقول ربي أنت سانكسو قبل قدر كان كجاه ليني هذا الكي وسير كرمها قاشان دقة الصومالية مدن أحمد معلم فقيه وشال كورتش دي أقل كسر برلمان جمهورية الفدرالية الصومالية أنت المركز كل مدن السياسية في أمان الله.